السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال halkani waa Alpha Media Group. Haddii aad channel ku cusubtiin subscribe saarta gambalelka hilmaameynka aad u noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ee xogaha aan baahino. Haddii aad ka mid ahayd asxaabteennii hore nala sii joog insha Allah. maanta barnaamijku aad iyo aad ayuu u xiiso badan yahay waxaanu ku saabsan yahay arrintii Durdur Media ama dhacdadii ku dhacday Durdur Media taasoo ahayd in la khiyaanay Xasan Toob. barnaamijkii ku horeeyay waxaan ku tabinay in Xasan Toob la khiyaanay iyo dadkii khiyaanay iyo dadkii dhibaateeyay iyo dadkii sida xun ula dhaqmay Xasan Toob. talooyin kala duwan aan u gudbinay ayaa jiray laakiin talooyinkii aan u gudbinay wax badan oo ka dhaqan galay ayaan maaragtay barnaamijka kula wadaagi doonaa. ay qooti sidee u aragtaa arrintaas soo korortay hadda waxaa nala soo gaaray warar sheegaya in maaragtay dhalinyaradii dhibka geystay ama Xasan Toob dhibaatada u geystay channelkiisa hawada ka saaray in maaragtay xabsi isku geey rabaan maqlay hadda maaragtay arrintaas ay soo dhacayso alertigaas uu jiro aan maqlay marka maxaa ka jira nin horta waa macsan tahay qadarow barnaamijkan horta waa barnaamij aad looga xumaado dhacdadii foosha xumeed ay kula kaceen asxaabtiisa Xasan Toob haddaan nahay bahda Alpha Media Group oo dhammaystiran Marstel Abdisaqyara Sooranyara Abwaan Cabdidaara Qadar Cabsiye iyo anigoo ah Qooja Qacle dhammaanteen aad iyo aad ayaan u xambaaraynaynaa waana ka xunnahay falkii foosha xumay ay kula kaceen Xasan Toob dadkii uu soo caawiyay oo meelaha wax waaye halista badan oo riskiga oo ka soo waday qaarkood oo laamiyada ka soo waday qaarkoodna ayagoo baaga muuqda magaalada oo ka soo qabtay inay asagii afgambiyaan oo YouTube lay kale ay Xasan Toob challenge kala dhaxeeyay ay la saftaan waa wax aad looga xumaado falkaasna kulli waxyaabo badan baa ka dhala doona la isaga harimayo haddaan team Alpha Media Group nahay annaga Xasan Toob aan garabkiisa nahay wax waaye kulli wadan sharci la waaye wadan dawladdu ka jirta waaye wixii aad maanta samayso maxkamadda wadanku leeyahay talooyinkii aan saaka soo jeedinay marka waxyaabo badan oo ka dhaqan gala meeshan ku haynaa waxaa kamid ah Qadar Cabsiye maxaa kamid ah talooyinkii aan saaka soo jeedinay Xasan Toob maadaama dad la yaqaano oo og yahay ay barnaamijkaas ku kaceen waxay ahaayeen dad Durdur Media ka shaqeyn jiray passwordka Durdur Media hay waxay ku kaceen oo ay la kaashadeen qaar kamid ah dadka Durdur Media lagu sheegi jiray in ay qayb ka leeyihiin ama loo yaqaano gudoomiye qulfaan arrintan waxay ahayd arrin dhisan oo joogtada aan ka warhayno waa arrin laga soo shaqeeyay oo ay dad badan ka shaqeeyeen waxay ahayd arrin ku salaysan ismaandhaaf soo kala dhaxgalay qulfaan iyo Xasan Toob taasoo sababtay iskooxaysi Durdur Media dhexdeeda ah waxa dhacda marka in qaar kamid ah shaqaalihii Durdur Media xilli dambe oo maaragtay 6 saac iyo 7 saac habeenimo inay maaragtay guriyii ka baxaan oo maaragtay waxay dignaayeen meesha uu ku yaala xafiiska Durdur Media ayagoo oo la ogeyn ayay baxaan marka Xasan Toob xalay ayuu maaragtay ka hadla arrintaas xilli saq dhaxa ayuu maaragtay sheegay in saaxiibadii lagu yaqaanay ama wajiyada banaaye Durdur Media lagu yaqaanay inaan maaragtay u sii wada arki doonin oo ay iskood u gartay inay ka baxeen haddaba maxaa xigay arrintaas waxaa xigay in Durdur Media guud ahaan hawada laga saaray sida waxa u dhaceen saakay barnaamij ku horeeyay ayaan maaragtay ku sheegnay in ku tabinay waxay u dhaceen waxa dhacday account ayaa la sameeyay oo maaragtay account kale ayaa laga dul furay Durdur Media accountkoodii hore ama channelkoodii hore ayaa waxa laga hoos furay channel kale sidaas darteed ayaa maaragtay transfer lagu sameeyay subscribe iyo dhammaan wixii ku jiray muuqaaladii wixii oo dhan Durdur Media aad taqaaneen oo maaragtay channelkii Durdur Media aan ka dhaxgala qadarow Soomaalidu waxay tiraahdaa wax waaye oo laga soo wariyay wiilwal wuxuu saacnaas adag iyo weedha maxaa kulmiyay aad iyo aad in 7 saac habeenimo oo baxo shaqaalihii Durdur Media mid kamid ah in haddana saq dhaxo habeenimo oo haddana baxo mid kale oo shaqaalihii kamid ah in xalay xilli dambe isla xalay xilligii dambe in haddana channelkii dhamma hawadii laga bixiyo waxyaabo badan horta isku soo aalaaday aad iyo aad midda kale shalay sida aan ka warhayno qaar kamid ah YouTuberada magaalada Muqdisho waxay qabsadeen xaflad ducaa
xafladii durdur lagu soo xafladda marka marka qaar badan oo kamid ah taageerayaasheena iyo dadka arrimahan aada u faaqida oo youtubeley badan oo la sheekaysano waxay leeyihiin waa xafladii durdur media lagu soo gabagabeeyey marka sagootintii durdur media la dhihi karaa ay dhaheen xafladaas marka kolley dhibaatooyin badan ana ka dhalan kara sida aan hadda waxooga hoose aan ku helnay saldhigga degmada Waaberi ayaa looga wacay dhammaan intii tuhunka uu ku jiray xasan toobna wuxuu joogaa saldhigga degmada Waaberi xilligan aan la hadlayno sida xogaha hoose ay noo sheegayaan kulley wadan sharci la waaye youtube-ku sharciya u yaala wadankana sharciya u yaala youtube-ku waxa waaye waa business kulley meel uu qofku kulley ganacsi uu leeyahay waaye ganacsigaagi marka wixii kugu soo weerara wadanku dawladdu leeyahay dawladda ku kala baxay sharciga ku kala baxaysan marka waxa waaye Soomaalida news aaminkiya ka sii dhamaanaya waayo qafaad shala aamintay soo dhaweeyay gurigaagi aad keentay hadduu ku qiyaamay wallahi ni waxa u maleynaya waqti dhow waxa u maleeyaa wax is aamin in la waayo is aamin waayaan waxa waaye marar qaar waxa dhalanaysa munta sida anagu aan u jeedno waayo wax daahirka aan xukminayno wixii qarsoon waa gooni moogta xasan toob waxa waa dad badan oo soo caawiyay dad badan oo maaragtay dadka baray dad badan oo maaragtay shaqooyin siiyay dhammaan dadkii maaragtay waxay noqdeen faataad marka waxay sameeyaan nin walba ee durdur media ka taga ma jiro qof dhahaya xasan toob ay soo caawiyay xasan toob saas iyale xasan toob inta ka dhacay dhammaan dhaleecaan iyo waxay ku mahadsanyahay malahan ku mahadsanyahay maanta youtube-da challenge yaa nagala dhaxeeya xasan toob dhahayo oo 24 saac meelaha ku jafaaya barnaamijka inay durdur media hawada ka baxdana ka qayb qaatay kaalinta weyn ka qaatay dhammaantood waa youtube waa dadkii oo soo saaray oo meelaha ayagoo waxa waaye kulley nin walba duruuf ay ku hayso waxa waaye oo ka soo waday waayo qofka shalay markuu durdur media ku biirayay duruufa u geysay soo ma noocay rabtaba ha ahaato duruufuhu haba kala duwanaadaan marka waxa waaye horan waxaan maqli jiray abaal nin gara waa la arkay nin gudaasaya marka kulley waxa waaye xaqu soo daahiri doonaa xaqaana guuleysan doona xasan toob waa nin madluum oo la dulmiyay تعسيق طبعا طب هذا وين يوتيوب كذا بختي مركا فير دي من مظلوم الدلميه وين الله سبحانه وتعالى وحوليه هاي مظلومك دعادي سوى الاقبلا دعادو الاقبلو كمي وهي قف كان مسلمك ولالك ماشي او كشقيسناي waxa waaye hunguri dartiis inaad u burburiso wax aad u foolxun waxaan raadinay bal inaan ogaano waxa ka dhaxeeya xasan toob iyo nimankan maaragtay youtube-ka maaragtay dibka u geystay shaqaalihii durdur media maaragtay inay midba maalin soo jiidaan inay dadku isku diraan in marka inaan bal ogaano meesha dhib ku jira ayaan isku daynay anuu ma garanayo waxa uu ka faa'iidayo qof tusaale kale youtube-ka alfa media group sida aad taqaanaan waa aad iyo aad u maaragtay macaamiil badan ayaa nagu xiran haddii marka aan aragno dad maaragtay naga daawasho badan wallahi billahi tallah inaan ku farxamaano inaan ka xumaanay sababtoo ah waa qof Soomaaliya maaragtay qafkii ka daawasho badan oo adigu ay ka daawasho badan yihiin waa qafkaas inaad ku dayarto oo waxa uu sameeyo kale ku dayasho mudan yahay laakiin inaad xaasido irsaaqada adigu ma bixisid ilaaha bixiya youtube channel waxa waaye kulley waa aragtay oo qof walba wixii daawado lacagteeda hela Soomaa صح la irsaaqada oo qofkan helayo nin adoo qof muslim ah inaad doonta inaad qabato isku daydo qof muslim oo walaalka ah Allah gacan u jirleed maamulada taasoo gacan u jirleed wallahi billahi waa dhibaato dhacay ilaahay dadka qaar irsaaqada noogu dhiibo alxamdulillah ilaaha irsaaqada qof walba irsaaqadiisa waxa waaye maalintii 40 habeen oo caloosho isku jira u qoray xasan toobna waxaan leenahay wixii lagu qoray waa kugu dhacayaan waadna guuleysan doontaa waayo mar walba madluumka guuleystay daalimku ma guuleysto garabkaagana nahay kulley dacwaduna si hadda u socoto waa talooyinkii aan saakay dhiibnay sida fiican waxa waaye kulley dadaalka iyo kartida la aad u qaadatay waa ku mahadsan tahay xasan toob garabkaagana nahay kulley degmada Waaberi waxaan ka rajeynaynaa inay si cadaalada walaaltinimo kiiskaas u qaadi doonto dhexdhexaadnimo arrintan marka ah in dadkii oo dhibka u geysta xasan toob inuu dacweysto ah oo xaq u leeyahay wax uu la yaabi karo ma aha dadka qaar waxaan arkay meelaha qaar maaragtay
communities ku qoraayo dhahay muxuu u dacweynaa muxuu ka rabaa waxa qofku xaq uu leeyahay ayuu raadsanaa ceebna maaha in qofku xaq uu leeyahay uu raadsado runtii aad iyo aad aan u faraxsanahay in la ogaado dadka falkan ka dambeeya weliba si dhaqso ah xaqu moogtahay qofka waxaan maqli jiray qof dilmo ma qarsamo xitaa meel aan dad joogin haddii uu qof ku dilo laasim waa la ogaanaa qofkaas dilay inta badan ma dhacdo inuu qarsoomo qofkaas marka hadda nimankan maya dhagarow ma qarsoomaayo bahalka youtube-ka sidoo kale youtube-ka meeshii lagaa soo weeraray in la ogaado waxa aada u fudud waaye kolley nimanka hadda kolley soo weerarana aada ugu fududaadeen sida aan aaminsanahay waayo cadaymihii qofkii soo weerartay waxyaabihii uu sameeyey wixii oo dhan macluumaadkii oo dhammaystiran waa la helayaa waxa waaye kolley maanta qof walba oo soomaaliya waa ogtahay xasan toob waxa uu yahay shakhsiyantiisa nin dhallinyaraa shaqaysta asagoo shaqaysanaya nin dhallinyaraa inuu asagoo shaqaysto kuma ekaana ummad kaloo shaqaaleysiyo shaqo abuur u sameeyey aad iyo aad kuwii oo maaragtay ka soo waday meelaha maaragtay ka soo waday darbiyada iyo wax waaye iyo meelaha amaanta loo adeegsano amaanta asagii loo adeegsanaa lagu dhibaateeyaha oo luuqad aragta lagu wareysanaa dhibaatooyinka jiray ka mid tahay oo magaalada lagu arko marka aadan u xunnahay waanu tacsiinaynaa walaalkay insha allah waad guuleysan ilaahay tala saaro qof allah tala saartay ma khasaaro tawakkal cala allah wa kafaa billah wakiil runtii waxaan isku dayi doonaa mar walba waxaa kusoo kordha arintan oo aad iyo aad u xamaasad badan ayaan isku dayi doonaa in aan idiin soo gudbino marba waxaa kusoo kordha insha allah bilkariim la soco hadii ilaah yiraahdo la soco insha allah alfa media group mar walba iyo dhacdo walba insha allah waa ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka barnaamijka intii hore nagu xiriirna waad mahadsantihiin kuwa cusub oo nagu soo biirayna kusoo dhawaada gacmo fara